السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أقوى سو dhawaada oo markale iyo casharkeena Excel-ka sidii ballantu ahayd caawa casharkii labaad ayaanu bilaabanaa. Markaas waxaan ka hadlaynaa dukaan alaabka duwan hayo qiimihiisii iyo la alaabta tir ahaan intee la eg tahay ama cadad ahaan intee la eg tahay iyo lacagaan marka loo bedelay ayaanu barananaa hadii la yiraahdo. Marka halkan nambarada qiimaha way ku qoran yihiin, nambaro ayun bay yaala. Markaas lacag ahaan si loogu bedelo saasa loo wada dooranay dhammaan. Right click ayaan leenahay. Format cells kaas ayaan tegaynaa. kadib halkan format cells waxa ku hoos jiro maxaa la dhahaa content aad u fara badan baa ku jira, numbers, alignment, font, border, fill, protection, waxa soo dhan baa ku jira. anagu laakiinse waxaan ka qaadanaa category-da qaadanaa lacag maadaama ay waxaan xisaabin lacag currency-gaasan ku dhufanaa. kadib calaamadda dollarka halkaas ay taala default. lacag kale way ku hoos jiraan oo laga heli karaa pound, yuan, yen, Japanka, hala euro, lacag kasta way ku jirtaa. laakiin se anaga dollar maadaama aan u jeedno calaamadda dollarkana ay ku noo taalo okay ayaan iska siinayna. lacagtii nambaradii iska yaalay dollar ayay noogu bedelmeen bay ka dhigantay si kale haddii aan hadalka u dhigno. markaas waxaan xisaabinaynaa alaabtan 200 ah ee TV marka iyo la lacag ahaan markaan u bedelo qiimahan inta noogu fadhido ama ninka ay ugu fadhido bakhaarka ayaanu xisaabinaynaa. marka koobaad equal to ayaan leenahay B2 oo ah qiimihii TV-yadu ay ku fadhiyeen oo lagu dhaftay cadad ahaan inta TV-yadu hayeen 200 oo TV oo lagu dhaftay min $50 kiiba $50 jooga ayaa noqonaya $10,000 oo dollar. markaas mid walba saan u shaqeyno halkan qasab maaha inaan equal dhigano mar walba sida caadiga ahayd geeskaas yaraan tagay marka calaamadu isku bedesho isku talaabtaas ayaan hoos u soo jeedayna. kadib wuxuu noo shaqeynayaa wadarta koobaad maxaa la wadarta mid walba ama alaab walba totalkeega ama wadarteeda guud ayuu noo shaqeynayaa. dharka caruurta 600. markaas haddii uu is yiraahdo ninkan alaabta maxaa la ganacsadaha alaabta ii taalo iyo qiimihii aan ku soo gatay qiimahan ay maanta ugu fadhiyaan way kala yareen hadduu yiraahdo laba mid un buu sameeynaya ama bas saleskan ayuu kordhinayaa oo 4500 iyo saas ku noqonaysa ama bas kan uu iska deynayaa oo 80kiisa ayuu ku deyn laakiin saleska iyo kor soo qaaday 200 oo kuraas maxaan u keenay way oran ilaa 10000 ayay u tagaysaa. labada mid kolba uu yiraahdo way ko anfacaysa ayuu ku kordhinaya ama sales ku kordhinaya ama qiimaha kordhinaya. saas darteed iyo targetkiisii ku gaari karaya qofka ganacsadaha. halkan 20ka ayuu ka dhigi kara 40 dharka caruurta bal hadaan ka dhiga ka horna ilaa 1200 ayay u gaadhay 600 ayayna markii hore ugu fadhiday. markaas W ku daray bay ka dhigantay ama sare u laba jabaare. markaas saas ayay ku soo baxaysaa mid walba qiimahooda. markaas aan isu geynta guud aan u wada aragno ninkan raas maal ahaan intay ugu fadhido lacagtani equal to ayaan leenahay saam ayaan leenahay isu geyn maadaama shaqeynano equal to ayaan la ilaayon markasta saam double click baan leenahay. kadib kor ayaan ka soo bilaabnaa hoos ayaan soo jeedinaa inta ayaan leenahay qiimaha ay ugu fadhido alaabtan oo dhan iyo tusinaya mid walba kaas alaabta dhan qiimaha ugu fadhido totalkaas ay ugu fadhidaa. formatka markaad ka lafteeda pointerka aad shaqeynaysa way kala yiraahdo soo uma jeedaan si ay isku laakaysadaan kan ka koraad click leedahan halka format pointer ay ku qorantahay click painter leedahay ayaad click dhahaysaa oo soo qaadaysaa click waa ku dul dhahaysaa waslaakaanaya number ahaan. markaas waad ku mahadsantiin daawashada aqoon wadaag YouTube-ka subscribe noogu qabta, comment noogu qabta, share na dhax casharkan dad badan gaarsiisay uga faa'iideystaan. waad mahadsantiin. assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.